بسم الله أما سنت ولا الفكرية waxaan isleeyahay horta iska sunnada dawliga in madaxweynuhu golihiisa xukuumadda uu sheegareeyo dib u habeyn ku sameeyo hadda waqtigii markaa jooga iyo siyaasadda taagan ila janqaadi ka dhaw keeno taas waa mid tan labaad waxaan isleeyahay madaxweynaha Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Deni wuxuu dhawaanahan qaatay muddo ku shaqeynaya hadda inuu hirgeliyo nidaamka democratization-ka Puntland oo loo hayaamo barnaamijkaas lagana guuro barnaamijkii qabiilka muddada rubuc qarniga soo shaqeynayay marka waxaan isleeyahay madaxweynaha ujeedadiisa ugu weyn waxay ahayd in la helo golo xukuumadeed oo hal siyaasad one government policy ku shaqeynaya oo ah siyaasadda madaxweynuhu uu hadda u jiheeyay xukuumaddiisa waxa kale oo iska open secret ama maaragtay sir furan ahayd in qayb ka mid ah golaha xukuumaddu aysan ku qanacsanayn barnaamijkii madaxweynaha oo ay ka garab shaqeynayeen oo ajendayaal iyaga u gooni ah ama kooxdooda u gooni ay ku shaqeynayeen taasoo keenaysay tuhun laga qabi karay daacad ahaanshaha madaxweynaha barnaamijka democratization-ka maadaama golihii xukuumadda weliba raggii laga yaabo inay ugu dhawaayeen ay si open u sheegayeen si furan u sheegayeen inay yihiin musharaxiin inaysan diyaar u ahayn inay qayb ka noqdaan siyaasaddaas madaxweynuhu ku jahinayay barnaamijkaas democratization-ka marka waxaan isleeyahay waxyaabahaasoo isbiirsaday ayaa keenay in xukuumaddii organization lagu suubiyo oo dib u habeyn lagu suubiyo oo la soo geliyo dad markaas loo arkay inay muhiim u yihiin barnaamijkan waad mahadsantahay Idris markaad leedahay in la helo xukuumad ku shaqeynaysa one government agenda hal xukuumad oo isku aragti ka ah weliba barnaamijkan qof iyo cod inuu socdo dabcan hadda wasiirada ugu muhiimsanaa oo xilalka laga qaaday waxaa ka mid ahaa labadii wasiir oo gobolka Nugaal wasiirkii maaliyadda iyo wasiirkii cadaaladda marka arinta ku aadan nidaamkan qof iyo cod iyagu maxaa dhacay daacad kama ahayn miya wasiiradaas والله أرتدي إن شخصيا ما في أنا لكن هذا سياسة دون دلالة أو مارتي كورقة مكاجدو وأوغاين وسيلة هذا قيب كاملة ولبا نقولين يعني مدحوين حدويين أيهن مشرحين ربعنا كتر كمان برنامج كي قبلي جاها خارج أي بنتلان ودورن جد مدحلنا مركا arrintaas arrin qarsoon ma ahayn waxaana muhiim ahayd marka inuu madaxweynuhu tallaabo qaado waxaan isleeyahay wuxuu qaaday tallaabadii ugu saxsanayd ee uu qaadi karay hadda waxaan rajaynaynaa maadaama xukuumadda ay soo galeen xubno muhiim ah oo barnaamijkan hadda loo guurayo aada u fahamsan mabda ahaanna u aaminsan in waxay taas muujinaysaa in madaxweynuhu marka tallaabadii uu qaaday ay tallaabo Idris ma oran karnaa xukuumaddu iyada fashilka lahayd ay wixii ka dhacay oo kale hadda marka arrinta qof iyo cod laga hadlo tusaale u ahayd tabarta xukuumadda gole deegaan oo sanad ku dhawaad la fariisin waayay almost 10 bil marka see barnaamijkan haddana waxa ognahay madaxweynaha waxa uu haray sanad iyo dhowr bilood oo shalayna uu sheegay wasiirka arrimaha gudaha cusub Juxa oo xilka la wareegay marka maxaa lagu qaban karaa sanad iyo barkaas hadii hal sano gole deegaan oo hal degmo la fariisin waayay xagee see barnaamijkan u soconaya xaaladdu ma socon weynay oradna Idris والله waa maasantahay runtii horta arrinta ay dimensions baaragtay aragtiyo kala duwan baa jira oo dadka arrinkaas la socday ay qabaan duruufo badan baa jiray oo ku xirnaa marka muhiimaddu ma aha caqabadaha kooban ee dhacaya muhiimaddu waxa weeye in Puntland laga raro meesha maanta ay joogto loona raro meeshii Puntland markii la dhisay aragtiyihii lagu dhisay in nidaam democratic governance laga hirgeliyo marka waxa muhiimadana ma aha caqabadaha halkan iyo halkaas ka dhacaya waxa muhiimadana waxa weeye in barnaamijkaasi hirgalo in barnaamijkaasi yahay mabda in barnaamijkaasi yahay aragti aysan Puntland xilligan ka maarmi karin caqabadaha imaanaya barnaamijkiisa markii la bilaabo waxa ka imaanaya wuxuu yeelanayaa cillado wuxuu markii cusub yihiin
caqabadihiisa badan casharka laga baranaya waxbaana lagu duldhisaya marka anigu waxaan qabaa muhiimadda weyn waxa weeye in Puntland ay ka guudo barnaamijka hadda lagu shaqeeyo loona guuro barnaamijkaas waxaana anigu isleeyahay taasi waa mid ka mid ah life achievements madaxweyne Deni hadii uu ka dhabeeyo hirgelinta barnaamijka moogta macmil in akoonka Sayfin akoon oo kamid ah akoomada Salaam Bank aad dhigan karto lacagaha adigoo jooga gurigaaga goobtaada shaqada iyo meel kastaba waxaadna ku dhigan kartaa adigoo maraya habkan fudud fadlan garaac xidig 886 xidig akoonkaaga bangiga xidig lacagta 4 gees Sayfin akoon waa konto dhigaal ah oo macmiilku ku keedsan karo lacagihiisa si fudud waxaadna kala bixi kartaa adigoo taga xarumaha bangiga oo kaliya ku keedso lacagahaaga kontada dhigaal ee bangiga Salaam